sida la simaa fanka aniga fanku ana hurday muhiimane isagoo hurdaan soo xaday oo soo qaadanay isagoo hurda fanka laftigiisa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. aad badii salaam iyo dhamaan baada ku xidhan baarida fashiyaal soo dhawaada saaxiibayaal meel kasta joogtaan. haddaad ku cusub tahay channelka subscribe noo saar, videogana share garee, sidoo kale like-tana naga hilmaamin. waxaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa Kensig best YouTuber sidoo kale fanaan bal maanta waxaan soo wadeegi doonaa insha Allah qaabkii lagu soo dhaweeyay caasimadda Somaliland Hargeysa. isla socod wanaagsan naga daalina saaxiibayaal. hada loriyaqiyo hawraarta masada halkaran qadarilo heesaya gabayada halku ee badhigayay horta ma badna asxaabta la joogtaa balse waxa lagu soo dhaweeyay buur kamid ah buuraha Hargeysa. waxa lagu wareeyay Hargeysa ka daawada calada wataas background sara la geeyo dusha laga daawsiinayo magaalada kolay dadkan halkan ugu horeeyeen waxa hormowda halabuur awal bile oo kamid ah YouTuberada Soomaalida ayaa u qaabilsan qaybta soo dhaweynta. kala asxaabta badankooda si fiican u garan maayo balse awal bile ugu horeeya asxaabta soo dhaweynaysa Kensig أنا كسي سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا توعا أو نكسر دلاتي بأخيارتا ملك الدنيا الدعالة اللي نقدر عونيان وعن صدق كلامهم هذا عندنا يا أصحاب هالكن وضعتني قبلها يقول شيء بس كوجرا ساك اللي حدي ساك عايز يوصل ويان ولا الكود كيسيك أو ما جلس هذا عمر كريش لكن كيسيك وكم قاعدين ويا هاي سيكي وحاوكسو على يوتيوب كا مستر سيكي لكن ما قاعد يساعد هو عمر كريش in the building in the house. sidoo kale wuxuu siikay oo niga kaliye hindida magaranaysa naga bareecay si kastaba aatee waxaan ku soo dhaweynaynaa Somaliland oo dhan gaar ahaan gobolka Togdheer gobolka Ragga ku soo dhaw baan leenahay minankaagi leewaay ku bilaabaya kadib inuu dambaysi doonaa walaalkii lakii soo dhaw hal iyo laba aad baan u salaamayaa asxaabta qaaliga ah ee na daawanaysa. waxaan leeyahay Kensig muu iman magaalo uu marti ku yahay laakiin wuxuu yimi hooygiisii. waxaan leenahay waxaad u timi walaalaha oo ku jecel soo dhaw walaal qaali ee gurigaaga dhabta ku soo dhaw walaal macaan laksho waxay tiri muu iman magaalo uu marti ku yahay. horta waa runo Soomaalidu meel kasta ay tagto waxaan aaminsanahay meel kasta oo Soomaali joogo oo aan tago inaan marti ku ahayn. siikeena waxa la iman kuwa minankaagi way soo dhawow sidoo kale waan ku suganaa hadaan nahay bahda gobolka Togdheer soo dhawow waan ku leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad bisa ku soo dhawnaa walaalkeen Khadar inkastoo aan ugu dambeysay madaxweynaha kama sii dambeeyay laakiin yeelkiin haddana waxa lagu soo dhaweynayaa Khadar waa ninka kaliya ee Soomaaliyeed ee ugu subscribe badan YouTuberada Soomaalida. qadar in badan wajigiisa garan mayso laakiin waa ninka iska leh waqal studio ee soo galiya heesa hambaliyan kule qadar والله aad baan ma santay caawin aad baan u soo dhaweeyay anaka saamar ku hadlo nin oday iyo waxba horta aamusin wallahi nin oday oo caloolweyn iyo waxba sarkaysa in dhalinyaro dhar siga xuri markuu qadar waa markii ugu horeysay ay soo jaarkaan telefoon bay ka wada hadleen kale aniga laftigaygu مستر خضر هورس ما نارك لكن ورشين يمكن أن كلنا إن شاء الله. aad baan kulana saaxiib ku soo dhawo hooyigi fanka waa maxamed waa Hargeysa weeyeen hooy waa maxamed lukaagi weeyeen saaxiibo waxaan ku wali wartama show aad iyo aad u wanaagsan baa insha Allah wartama ku qabqaabanina waxaan ku wali soo dhawo thank you so much aad iyo aad ila gobolka Rabbi sidoo kale siikay ma YouTuber kaliya fanaan Hargeysa doonay inuu kala kacsado oo shido waxaan ka baqayaa inaan fan ku soo biiro si lagu kala kiciyo sida la simaa fanka aniga fanku ana hurday muhiimane isagoo hurdaan soo xaday oo soo qaadanay isagoo hurda fanka laftigiisa bal aynu ku sii soconaa
bal waxaan soo dhaweynayaa walaalkeen dheereeye ku soo dheereena waa fanaan aad u cudmaan isagana laga warhayo horta soomaalida badankeedu waa fanaaniinba waan laga warhayne fanku ku dhex baqtiyaanku boqolkiiba 8 aad baa loo soo dhaweeyey magaaladana de hore wuu joogay imankana wuu joogaa waxaan leeyahay un dee heestii hargeysa baynu qaadaynaa hooygii murtida iyo hooyadii abwaankay marka hore bariidiyo hambal iyo salaam baan hadiyad kaaga dhigaye waad hooda badantee hargeysay ma nabadba waad hooda badantee hargeysay qaabkii loo soo dhaweeyey magaalada hargeysa lagu soo dhaweeyey markuu ugu horeysay ilaahay amaad iska leh marka xigta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in hargeysa aan imaado dadku markay hadlayaan dadna waxay u hadlaan dhegihii ku maqlayaa kuu dhow dadna way calool hadlaan aniga wallaahi waan calool hadlayaa halkan horta waa gurigaygii 8 sannado ka hor halkan waxay ahayd gurigayga iskuulkaygii baa ku yaalla macallimiinteedii baa weli jooga waalidiinteedii baa qaar jooga halkan hargeysa markii hore horta waxay ahayd hoy sababta uu dhaaranayaaba dhaartana wax lagu degdega ma waayo dee maxkamadda marka taageertii baa la dhaartay ay ka maarmi weydo markaas sikay wallahi taageeraan ku nahay saaxiib taageero oo gurigayga ahayd ninna gurigiisa inuu jeclaado looma tilmaamayo oo waataa intaa maqnaa qurbaha aan joogay weligay imay dhaafin munaasabadda 18 May oo markasta aan soo hambaliyeyn jiray markii ay noqoto youtubernimadeedana waxay ka mid yihiin dhalinyarada reer Hargeysa qayb ka mid ah horumarka aan sameeyay qof kastana wuxuu wax ku yahay dadkiisa anigoo og meelaha aan tagay oo aan waqtiga ku soo bixiyay ayaa haddana Hargeysa waxay ahayd ama Somaliland qayb ka mid ah oo aan ku haminayay maanta waxaan dareemayaa ama saaki markii aan madaarka lugta soo dhigay sida ixtiraamka lahayd ee mas'uuliyiinta ii soo dhaweeyeen ayaan ilaa iyo hadda waxay ila mid tahay wallaahi riyo ii rimooday dream come true ma sha Allah xalay indhahayga isku maankeenin wallaahi maan seexanba waan joogay meel lagu seexan karo hotel qaali aan joogay laakiin waa iska dareemaysaa markii riyaa ku riyoonaysa in muddo ay ku hortaalo habeenkii xalay aan seexanba labadiisa indhoodaan isu keenin sababta tahay inuu hamigiisii islaad ka midho dhalisid sidoo kale insha Allah waxaan rajeynayaa inaan markaan kugu soo dhaweyno gobolka Togdheer أنا صاحب قاسحان كسود وينو أنت عشان كسوكوبنا إن شاء الله وحلي بارود فاملنا فيديو وشارك ريا عاد بدي سلام يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.